Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Yuusuf Maxamed Maxamed waxaan rabaa inaan halkan idinkaga sheego dhibaatada ka jirta wadada dheer ee laamiga ee aado ee ka baxda magaalada Beledweyne ee isku xirto gobolada dhexe waxaa jirtay dhawaanahan markii ay biyaha soo baxeen in wadadaas dhibaato badan ay ka jirtay ee dadkii ay go'dan galeen baabuurtii aysan isu soo gudbayn halkaas oo qasaare ay ka dhasheen qasaaraha ka dhasheen waxa waaye afar baabuur oo ku gadoontay laba baabuur oo cagaf ah iyo laba baabuur oo baabuurta leela calowga ah meeshan waxa ku dhimatay ilaa iyo 5 qofood dhibaatintaas leega ka dhacday wadadan wuxuu u geystay biyahan dhihi karnaa qasaaro weyn waxa meesha ka qodmay godad badan oo aan la mari karin meesha dhibaato adag ay ka jirto marka waxaan rabnaa inaan halkan ka cadeeyo qasaaraha intaas leeg ay ka jirto marka dhibaatintaas leeg biyaha ay ka geysteen wilna waxa adag isku socodka magaalada dhexdeeda iyo dadkii barakacayaasha ay joogay tuulada xaafadda Ceel Jaal ilaa haddana wax baabuur oo magaalada u soo gudubto oo aan dhigi karno raashin ama wax wada ma jiraan ganacsiga halkaas uu ku xayiran yahay warka waxaan umaleynaa ku noqon doona umaleynaa saxaab bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah aqoonyahan Xasan Maxamed Cilmi Xasan Kaafi kuna nool magaalada Beledweyne haddaan ka warbixiyo qasaarihii ay u geysatay biyihii ka da'ay biyihii ku soo fatahay magaalada Beledweyne qasaare aad u weyn bay bulshada u geysteen wadadana qasaare aad u weyn baa ka dhacay oo dhinaca burbur ah burburkaasoo saameeyay inay kala xiranto isku socodkii magaalada dhankii Ceel Jaale iyo magaalada burburkaas burbur aad u weyn ah kadib burburkaasoo ah burbur aad u weyn ah magaalada iyo hadda isku socodka magaalada iyo deegaanka u barakaceen Ceel Jaale hadda dib ay isku furmay dabudiska wadadaasna waxay u baahan tahay qarash aad u fur badan taasoo ay inay ka wada shaqeynayaan aqoon-yahanada iyo bulshada ku nool magaalada Beledweyne